السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan tijaabin doonaa inagoo isticmaalayna programming language-ka Python iyo framework-kiisa la yidhaahdo Django in aynu dhisi karayno barnaamij commerce. Marka shaqadeena waxay nala qaban doonaa maanta oo aynu isagana tijaabin doonaa isticmaalka application-ka la yidhaahdo ama AI-ga la yidhaahdo Cursor AI. marka Cursor AI-ga haddaynu eegno waxaan ku qori doonaa Google-ka Cursor baynu qori doonaa kadibna waxay noo soo bixi doonaa AI-ga halkan sare inoo yaalla ayaa inoo soo baxaya ama haddii aan idhaahdo google.com baan u baahanay fariinteeda halkan aan ku qoranayaan ay tahay Cursor AI aan ku qoran inta idhaahdo wixii soo saari doonaa websites. marka website-ka ugu horeeya halkan ka soo baxay baynu geli doonaa kadibna qofku wuxuu odhan doonaa waxaan u baahanay Cursor marka tidhaahdid gudaha Cursorkeena aad soo gashid halkan download bay ka odhan doonaa hadduuna computerka inoogu jiro. sidoo kale waxaa shardi inaynu halkan sign in idhaahno aynu account ka dhex samaysano. marka sign in marka tidhaahdid kugu horeysa aad Cursorka soo gelisid waxaad ku geli doontaa Gmail account, Google account haddaad lahayd ama GitHub labadaba waad ku geli kartaa. emailkaagii Gmailka ahaa waad ku geli kartaa GitHub kuugu jiraa meesha hadduu jiro isna waad ku geli kartaa. intaa haddayn ka nimaadno project-geenu waxaan nidhi e-commerce buu noqon doonaa. marka e-commerce-geena waxaan doonaynaa in uu inoo hayn doono alaabo aynu ku iibin doono ama products ayaynu isticmaali doono. e-commerce-geena waxaynu isticmaali doonaa inuu inoo hayo products ama alaabo aynu iibinayno. marka test yar bay samayn doonaa. kamarada rabaa sidoo kale inay yar tijaabiyo waxaan filayaa si fiican bay ugu wada shaqaynaysaa. marka shaqada ugu horreyseen bal horta kasoo bilaabin jirnay waxay ahaan jirtay qolooyinkiina Python-ka ku cusub shaashadeena iman jirnay sida caadiga terminaaladan hore oo dhan waan iska xidhi doonaa. shaashadaydaan imid kadibna waxaan idhi right click ama folder cusub baan samaysto new baan idhi kadibna waxaan idhi folderkaygan magac baad igu bixin doontaa. folderkeena waxaad igu bixin doontaan waa e-commerce AI la socda weliba artificial intelligence-geena eegayna awooddiisa inaynu ku barano. folderkeena gudihiisa markaynu imaadno right click baan odhan doonaa terminal baan ku furan doonaa. marka terminalku wuxuu ahaa editorkii haddaynu xasuusanno aynu isticmaali jirnay inta badan markaynu joognay hadda programming languages-ka dambe. marka terminalna waxaad kala degi kartaa Play Store-ka kadibna waxaan leeyahay command-ka ugu horeeya isticmaala waxa weeye computerkeena si aan ogaano inay Django ku jirto pip freeze baan isticmaali doonaa. pip freeze ujeedada uu isticmaalaya waxa weeye waxaan hubinayaa in computerkayga ay gudihiisa ku dhex jirto Django oo noqonaya framework Python leedahay. sidoo kale bilowga ay ku jiro oo isaguna noqonaya extension iyo ogolaanaya sawirada iyo waxyaabaha la midka ah in gudaha programkayga aan kasoo dhex saari karayo. intaa haddaynu eegno project-geenu wuxuu ka koobnaan doonaa waxaad ku bilaaban doontaa adigu install Django iyo ku shub kadibna freeze baad samayn doontaa si aad u tijaabisid. mar labaadna waxaad ku shuban doontaa haddayna kuugu jirin bilow baad ku shuban doontaa extension-kan kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo dhisi doontaa project la yidhaahdo e-commerce kadibna e-commerce bayn gudihiisa iman doonaa kadibna waxaan odhan jirnay si aynu wax uga bedelno migrate hana loo sameeyo. marka command-iskan bay qori doonaa inagoo isticmaalayna luuqadeena. waxaan leenahay markaa Python waxaan u baahannahay -m gaar ahaan Django waxaan uga baahannahay start waxaad noo samayn doontaa marka ugu horeysa project baad noo samaynaysaa. project-geena waxaan idhi wuxuu noqon doonaa e-commerce buu noqonayaa dukaankeenan waxaan idhi gudihiisa weliba isagu waa project-giya cd e-commerce nadhe gudaha e-commerce bayn geli doonaa. e-commerce-geena markaynu imaadno mar labaad waxaynu halkan uga baahannahay haddaynu ls nidhaahno ama list fileska aynu eegno waxay noogu jira folder la yidhaahdo e-commerce oo xagga sare yaalla. d haddaynu aragno waa directory waa folder. haddaynu aragno in waxa u taaganta waa file la yidhaahdo isaguna inoogu jira manage.py. kadibna waxaan odhan doonaa Python waxaynu u baahannahay gaar ahaan manage.py wax shaqada inoo qaban doontaa waxa weeye waxay noo samayn doontaa marka ugu horeysa wax la yidhaahdo migrate fileska inoo update gareyn doontaa. faileskeena marka laynoo update gareeyo faileskeena oo dhan oo kale laynooga dhigo mar kale waxaan odhan doonaa Python waxaan u baahannahay gaar ahaan
manage.py waxay noo samayn doontaa user aan ku geli karayno dhijaangadeedanu isticmaali karno waxaan isticmaalnaa create waxaad noo samaynaysaa create waxaad noo samayn doontaa baynu nidhi super user baynu idhahnaa marka super user wuxuu noqonayaa user awood u leh in aynu isticmaali karno in meeshayna soo gelino kadibna waxaynu nidhi userkeenu admin buu noqon doonaa emailkiisa waan iska dhaafi doonaa hadda passwordkiisuna waa 123 mar labaad ku celi 123 kadibna enter baan idhi miyaa uu gaabiyey baa leeyahay sidoo kale waa number oo waa caan miyaad ku qanacsantahay way baan taaban doonaa anigoo leh haa intaa hadday samaysano marka le halkan sarena iska yar masaxoon clear idhaahdo waxaan odhan doonaa python hadda waxaan uga baahanay shaqadan uga baahanay waxa weeye start waxaa laga abuuri doonaa maxay application cusub baa laga abuuraya applicationkaygana waxaan idhi waxaan tusaale ahaan kale ula baxay dukaan maadaama noqonayo show baan u bixiyey e-commerce-ga magacyo kala duwan baynu ula bixi karnaa shop waa optional laakiin tusaale ahaan haddii uu jiro cid aan u samaynayo oo kale ama meherad magaca leh specific waxaan sheegi karaa meheradda magaceeda marka sample waxaan soo qaadan doonaa nin hanta la yidhaahdo hanta online baan odhan doonaa tusaale ahaan ayaan u samaynaya dukaankaasoo kale ayaan doonayaa inaan u sameeyo website-ka intan gudihiisa marka soo gallo kadib waxaan odhan doonaa shaqadii inoogu xigtay qaban doonaa waxa weeye inaynu ku furanno codekeena marka waxay noogu xigi doonto code baynu odhan doonaa space baynu odhan jirnay kadibna waxaan odhan jirnay maxay dot hadda wuxuu noogu furi doonaa visual studio code buu noogu furi jiray laakiin maadaamaynu computerkeena ku shubannay aynu la soo degnay applicationkan aynu idhaahno cursor AI geenii ayuu inoogu furi doonaa codekeenii ama qaabdhismeedkeeni marka cursorkeena aynu shaqada inoogu xigtaa ka bilaaban doonaa aynu kasii wadi doonaa cursorkeena haddaynu eegno projectkeena gudihiisa aynu bal eegi doonaa qaabdhismeedkiisa iyo siduu u shaqaynayo marka waxaan ka bilaabanayaa laba shay baan haystaa hadda laba file mid waxaa la yidhahdaa e-commerce midna waxaa la yidhahdaa hante online baa la yidhahdaa labadan hadday isku eegno wax ka beddelkooda yar eegi doonaa aynu waddan markaa